السلام عليكم وإذن سلام أخيارتا ويب سايت كيا سوغلينا دي فيلو طريقي واي كلي ولا سعتين أمالينا إن شاء الله بإذن الله الكريم وأنو حاجة جنال كادا ونسنجو جنال كيغا جنال ما رأيت بروجرام كو فرمي بروجرام صحدا أن ديسكريبشن كان سوري دونا إنتريان دهاي بيجان إنتريان ده وحي كل إنفورميشن كأغرسان كرتن وسوا أغرسان كرتا أنت كورواي بيجان وسط ده مش أنا هجينا يا على مدهن كاركتر أنا قري سادو إله يرادا كاركتر مركا قرتيد كبعدي جدها وكسيجين دونا باتوان وكسيجين دونا باتوان سو ujeedin waa imaanay already baasaboorkaaga la soo baxaysa marka magaca awowgaaga waa magac kaligiis meel ku qoran yahay hadii gulaad maxamed cali maxamed kaas ka soo bilaabay ama maxamed cali cabdigii awowgaaga ah marka magaca awowgaaga xagaas gelinaysa baasaboorku u qoran yahay iska ilaaliya meeshaan magacaaga gelinaysa mid labaad magacaaga gelinaysa ilaa ku darnaade mid saddexaad waxa gelinaysa magaca aabahaaga gelinaysa ilaa doo qeer ka dhig insha Allah marka magacaaga magaca awowga ka bilaab magacaaga magaca aba family tan waxa waa gender mid labaadna waa lab idinku waxa tahay taa kala dooranaysa tan waa xilliga aad dhalatay sida baasaboorka ku qoran tahay bisha 11aad aniga ku qortay iska tusaale waay marka maalinta dhalatay waay bisha marka laba digit laga raado bisha afraad dhalatay ewer afar na dhaadid waay in ewer afar na dhaadid waa hadii ma aragtay ewer adii hal dhaadid ma yeelay laba digit ka rabaa iyo waqtiga dhalatay bisha iyo ma aragtay sanadka tan waa magaalada ku dhalatay meeshan waxa gelinaysa magaalada aad ku dhalatay hada ku dhalatay buur hakaba gelinaysa hada afka ku dhalatay afka ku gelinaysa hada ku dhalatay Kismaayo gelinaysa Muqdisho gelinaysa Hargeysa gelinaysa qof magaalada ku dhashay lagu yaqaana magaalada ku dhalatay meesha gelinaysa waxa ku soo haray boxkaas yar hada maybe magaalada ku dhalan garanaynin meesha taabsanaysa boxkaas kan waxa waay wadanka aad ku dhalatay ma aha wadanka joogtid ma aha wadanka aad ku dhalatay haduu Soomaali yahay haduu Kenya yahay haduu Ethiopia yahay marka wadanka aad ku dhalatay xagaasna gelinaysa meeshan yeesino waxba ma ka bedelaysid yeestada ku deynaysa saas ku deynaysa ka gudbaysa qaybta labaad aadaysa marka uu sawirka already soo gashay ku diyaarsan yahay sawirka meesha ku dhufanaysa oo juusta ah marka sawirka meesha kaaga jira taqaana soo qaadanaysa meesha gelinaysa mail u imaanayna sideedad mailinka waxa waaye yaa ka taxdir aabahaga noqon karta meeshaas qofka kala ku walaalkaaga noqon karo ku haynayo aad gelinaysa marka waxa qasab ah inaad gelisid tan labaad oo line 1 ah meesha aad joogto magaalada joogto wadada ku hormarto gurigaaga hormarto hada Nairobi waxay qabtaa wadooyin badan section 1 section 2 section 3 way qabtaa okay Hargeysa waxay qabtaa road number 1 Cabaye ay qabtaa Muqdisho waxay qabtaa wadada Hodan wadada number 4 marka wadada aad degan tahay magaalada aad gelinaysa tan labaad oo ka boodi kartaa option way magaalada aad joogtid ayaa gelinaysa meeshan mid ku hooseysan waxa gelinaysa haduu Ilaahay yiraahdo gobolka tan hadan gelinayo waa magaalada aad joogtid way aad ma aragtay ku nooshahay mail address kaaga okay mid kale ku xigto iiga waxa waaye gobolka Banaadir joogi kartaa Shabeellaha Hoose joogi kartaa Muruujixa joogi kartaa Nairobi province joogi kartaa marka meesha gelinaysa Boston waa ogtahin Boston waxa la geliyaa +254 +252 marka Boston ma lihin badana Soomaali Boston waxa sameynaysa ma haystile tan waxa waaye wadanka aad ku nooshahay hada just now inta ku nooshahay weeyaan taas tan sagaalaad tan tawraad numberkaaga gelinaysa meeshaas numberkaaga gelinaysa meeshaas emailkaaga gelinaysa emailkaaga laba mar ku celinaysa haduu Ilaahay yiraahdo hal mar gelinaysa dana mar kale gelinaysa emailkaaga tanbiidno A B qabtan B waa kala gelinaysa education marka u imaadid education waxa muhiim ah inaad ma aragtay high school wixii ka dambeeyay dooratid marka hal mar aan soo dul mar markaas ka bacdi continue aadaysa okay wax su'aal ah insha Allah ana isweydiinaa marka dadku su'aal wixii maybe qor noqday meeshaas waa idin sharaxayso baasaboorka u qoran yahay u gelinaysan ku dhahay laba dhidig waxa tahay dooranaysa tan labaad tan koowaad magacaaga saxiismo tan labaad dhidig waxa tahay tan saddexaad magaalada ku dhalatay xilliga dhalataan dhahay magaalada ku dhalatay wadanka ku dhalatay tan waxba kama bedelaysiino tan waa sawirkaaga soo qaadanaysa gelinaysa mailinka qofka aad asas u gelinaysa aan ku soo sharaxay sorry xogaa furta iga dhacday intaas waaye magaalada ku dhalatay yani magaalada joogtid wadanka aad joogtid hada numberkaaga emailkaaga hada ka soo qaad educationka waxa laga rabaa high school wixii ka sareey waxaan kala kuwan ka hoos dhan waa dooran kartaa laakiin waxaas in ka dambeeya ma fiicno marriage-ka waa unmarried waa single waaye labada marriage-kan lagu kala saaray marriage labaduba ka bilaawdaan mid waxa waaye gabadha way ka noqon gabadha qofka adiga spouse-kaaga uu ka noqon karaa
USA resident ku noqon kara wuu degnaan kara iyo ma degnaan kara waay ta saddexaad dooraysa marka adiga oo sharcigan la siinaya okay marka haddii adiga maaragtay guursanin haddii aad kala tagteen wax dhan waa dhameystiran yihiin caruurta intaa leedahay eber ayadana laba rijida ka rabta eber hal eber labo eber saddex aa dhehaysaa laba rijida laga rabaa marka continue aa dhehaysaa marka continue dhahdid wuxuu ku geynayaa automatic page labaad oo success waa gudbisay waad mahadsan tahay camal lagu soo diri doonaa ka bacdi intaas waa insha Allah biin Allah kareem waa yar boobsina umaleynaa maadaama ka gaarsiiya idan leeyahay dad baa doonay inaan justina wax ka gaarsiiyaan saas daraadeedan u boobsiiyay insha Allah biin Allah kareem batuwa kala jiri doona haduu Ilaahay yiraahdo laba digsi ana wax xareyn doona ayaa idin soo duubi doona insha Allah biin Allah kareem assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh guul wa ana idin dhamaantiin